الله naxariiste siyaasiga weyn Umar Carte Qaalib maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa intii dad xaafada ku jiray radio Muqdisho radio Hargeysa waa la shaqeeyay oo reporter ahaan la shaqeeyay waxna waan qoray oo buugayga warjira ayaan ku qoray 1930 ayaa ku dhashay magaalada Hargeysa waxbarashadiisa hoose dhexe ayuu ku qaatay kadibna sheekh ayuu u wareegay magaalada sheekh dugsi ku yaala oo macalinimada uu ku bartay ilaa waxbarashadiisa sare uu ku qaatay dabeetana waxa uu tagay dalka Ingiriiska oo xilligii Ingiriiska ay ahayd wuxuu kumayay Somaliland wuxuu dabadeetana jaamacada halka ku taala ayuu dabeetana uu soo bartay cilmiga bulshada uu ku soo bartay dabeetana markii uu soo noqdayna shaqadiisii watay laakiin markii dambe 1990 waxa uu noqday gudoomiye ku-xigeenkii degmada Hargeysa 62 markii xorriyadda la qaatayna waxa uu noqday gudoomiyaha degmada Ceerigaabo 1962 ayuu xagga diblomaasiyadda u wareegay oo min xogeeye koowaad safaaradaha Soomaalida ka soo shaqeeyay dhowr safaaradood ilaa iyo markii dambe uu wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda noqday markii kacaanku ka dhashay Soomaaliya ee dawladda reereed ay militariga inqilaabeen 22 Oktoobar 1969 muddo hayay oo uu caan ku noqday wasaaradda arrimaha dibadda waxaana loo wareejiyay markii dambe wasaaradda madaxtooyada wasaaradda tacliinta sare dabeedna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacbiga dabeedna waxa la xiray 1982 siyaasiyiinta todoba ahaa oo ay kamid ahaayeen isaga iyo madaxweyne xigeenkii General Ismaaciil Cali Abukar iyo Ismaan Maxamed Jeelle iyo General Umar Xaaji Masalle iyo Dr. Maxamed Aadan Sheekh iyo Maxamuud Yuusuf Weyrax iyo Warsamo Juquf oo isagu jeelka ku geeriyooday 7 sanadood ee ay ku jireen jeelka godoonka 20 jir oo magaalada Baydhabo u dhow ayuu kamid ahaa markii dambe la soo daayayna dabadeetana inkastoo dil lagu xukumay la soo daayay dabadeetana markii dambe burburkii ra'iisul wasaare ayuu noqday oo waqtigii Maxamed Siyaad Barre kadib dabeedna markii dagaaladii dhaceen uu ka baxay oo dabeedna wuxuu tagay Sacuudiga intii dambena uu ku soo noqday Soomaaliland wuxuu tartamay shaqada madaxweynaha 1993 shirweynihii beelaha Soomaaliland ee magaalada Boorama shirkii kale 1997 Soomaaliland beelaheeduna iyadana uu ka qayb galay intii dambe Sacuudiga ayuu ku noolaa 2018 ayuu ku soo noqday Hargeysa intaana Hargeysa ayuu joogay muddadii dambe uu xanuunsanayay maanta ayuuna Ilaahay naxariistay Umar Carte ku geeriyooday magaalada Hargeysa Umar Carte Qaalib waxa lagu xusuusan karaa xagga carabta inuu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee ugu firfircoonaa xilligaasi 1974 markii ay Soomaaliya ay ku biirtay jaamacadda carabta ee Afrika iyo carabtaba ugu firfircoonaa ee ku biiriyay Soomaaliya in ay xubin ka noqoto ilaa iyo haatan ay kamid tahay jaamacadda carabta waxa lagu xusuustaa in uu ahaa wasiirkii ku dadaalay in dalal badan oo maanta Afrikada koonfureed ah iyo dalal galbeedka Afrika qaarkood xornimadii ay qaateen jabhadii ka dagaalamay halkaasi inay gacan siisay Soomaaliya oo isaguna markaasi laf dhabar u ahaa oo sida koonfurta Afrika oo kale ay tahay inkastoo koonfurta Afrika imaka aad arkayso in abaalkii la gashaday aanay Soomaali aanay gudin oo dad badan Soomaaliyeed aad arkayso imaka meeshaasi lagu tacadiyo waxa kale oo lagu xusuustaa Umar Carte Qaalib sida uu mar walba uga muuqan jiray fagaarayaasha caalamka ee dalalka Islaamka waxaan xusuustaa 1977 inuu hogaamiyay festivalkii caanka ah ee lagu qabtay Lagos dalka Nigeria ee beelaha madow oo dhan ay ka qayb galeen marka aad buu caan ugu ahaa xagga siyaasadda nin afkahana buu ahaa nin gabyab buu ahaa nin suxufiya buu ahaa mararka qaarkood oo inta marka aan la soo shaqeyno aad iyo saxaafadda u soo dhaweeya